toddobaad kala soo dhaafay waxa baraha bulshada qabsaday filimaan iyo kartoonis ee ay lagu sameeyay filimaantaas iyo kartoonkaas waxa kamid ah filimkii aadka loo hadalhayay ee magaciisu ahaa Amiiro iyo Cali Amiin ma raba inaan dhinto ma raba inaan kayntaan ku dhinto ii badbaadiya kuwaas oo xayawaan loo bedelay jilayaal leh sheekooyin cajiib Amiiro waxaan filayaa dhammaantiin in wada daawateen oo uu meel kamid ah baraha bulshada uu kaga soo horbaxay dad badan ayaa la yaabay sida tiknoolajiyadu ay heerkan u gaadhay laakiin maanta waxaan tusi doonaa wax ka siiya badan maxaa dhacaya haddii dadka ugu caansan Soomaalida ay noo bedelno jilayaal film AI ah sidee bay u ekaan lahaayeen maxay sameyn lahaayeen yaa noqon lahaa geesi ugu awoodda badan leh sidoo kale yaa noqon lahaa qofka ugu qosolka badan leh muuqaalkan waxaan ku soo bandhigi doonaa film AI ah oo aan ka sameeyay shakhsiyad caan ah waxaan hubaa inaad arki doontaan muuqaalo aydan hore u arag haddaba marka ugu horeysa ee film la sameeyo maadaama anigu ahay khabiir ku takhasusay filmaanta inkastoo ay idinku aragtaan aniga oo soo gudbiyo muuqaalo entertainment oo kliyata yani YouTube ku soo gudbiyo haddana waxaan ahay khabiir filmaanta sameeyo filmaan badan oo aan haddana markay idin sheegay magacaantooda aad garanaysaan aan ka qayb qaatay kama soo muuqan laakiinse daha gadaashiisa ayaan ka maamulay ha ahaadaan inaan filmaantaas noqdo director-kooga ama aan edit gareeyaba ama sidoo kale sheekada filmka aan anigu leeyahayba idinku beban moosan laakiinse sheekh master shash beenta ma yaqaan haddaba filimkan amaanta sameynayay si uu soo jiidasho u yeesho dhadhan gooniyana oo dadka ku sameeyo waxaan soo xulanayaa labeenta dadka caanka ah aniga oo qof walba karakterka uu ku soo bixi doono gelin doona haddaba marka ugu horeysa ee film la sameynayo waxa ugu muhiimsan ama waxa ugu horeeya la qabtaa waxa weeye in la soo bandhigo sheekada filmka ama waxa uu ka waramayo filmkaas haddaba filmkan waxaan ka dhigi doonaa qiso jacayl maadaama qisooyinka jacaylku ay ka emotion badan yihiin qisooyinka kale sidoo kale Soomaalida inta ugu badan markii aan baaray filmaanta ay xiiseeyaan waxa ugu badan filmaanta jacaylka okay stepka labaad ee aynu sameynaa waxa weeye in filmkan aynu helno magac ku habboon magaca waxaynu ka dhigi doonaa jacayl waxa saddexaad ee aynu sameynaa waxa weeye inaynu jilayaasha filmka qorno waa in aynu sameynaa jilayaasha oo aynu kala dooranaa dadka caanka ah okay haddaba actorka waxaynu ka dhigaynaa Qays Qaysar actaradan waxaynu ka dhigaynaa actarada suuqarada ku soo baxaysa Qays Qaysar waxaynu ka dhigi doonaa Habi Ahmed okay mar haddii actorkii iyo actaradii aynu dhamaystirnay waxay noo soo haray waxa weeye waa laadarka filmka waxaynu ka dhigaynaa Dhifiq inkastoo Dhifiq reer aakhiraadka filmka uu ku wacana haddana waxaynu ka dhigaynaa laadarka filmka sababta warigna waxa weeye waa buuqle indhihiisuna khayr buu yareeyay magaranaysa okay haddaba filmkan waxaan ka dhigayaa sidii film Hindiya oo kale filmada Hindiga daawan jirteen inta badan waxaad arki jirteen laadarka walaalkiisa weyn walaalkiisa yar haddaba filmkan waxaan ka dhigayaa tabtii filmaanta Hindida oo kale laadarka walaalkii waxaan ka dhigi doonaa ninkay isku wacan yihiin Qays Qaysar ee saaxiibka yihiin dhakhtar baan ka dhigi doonaa laadarka walaalkiisa yarna waxaan ka dhigi doonaa Hayka imagaliyaata waxay noo dhiman atooraha saaxiibkii iyo atrishada saaxiibadeed okay atrishada saaxiibadeed waxaanu ka dhigaynaa gabadh waalan oo rufiyaaniyad ah in ka dhigi doonaa Istahil booskaas ama characterka iyada ku soo baxaysa okay atooraha saaxiibkiisa kan waxaanu ka dhigi doonaa Isti imagaliyaata waxay noo haray hooyadii filmka yaanu ka dhignaa islaam weyn ee sheego social media ku jirta on ka dhigo Qays Qaysar hooyadii waxaanu ka dhigi doonaa qadan sababtoo iyada ku soo baxaysa booskaas okay haddaba film kasta waxa uu leeyahay hordhac ama intro wax la dhaahdo filmkan intradiisa ama hordhiciisa waxaan ka dhigi doonaa dadka aan soo magacaabay ee jilayaasha ah 8 qof horta qof walbaaba inuu si iski ah isku kaya baro haddaba imika shaqada ugu horeysa aynu qabanayna waxa weeye in 8 qof walba sawirkiisa iyo hadalkiisa uu oran doono aan hadda dhamaystiro magacaygu waa Qays Qaysar waxaan ahay atooraha filmka Jacayl sidoo kale magacaygu waa Habi Ahmed waxaan ahay atarishada filmka Jacayl sidoo kale qadan qaran iyaduna waxay oran doontaa magacaygu waa qadan qaran waxaan ahay hooyada Qays Qaysar sidoo kale 8 qof ee jilayaasha ah waxaan ku soo biiriyay taliyaha filmka isaga waxaan ka dhigay Baabka Burco sidoo kale talisada filmka iyadana waxaan ka dhigay Najman Nashaad sidoo kale macalinka waxaan ka dhigay macalinka filmka Baabaje sidoo kale waxaan meesha ka maqnay Bismillahir Rahmanir Rahim hallo kaco sidoo kale waxaan ku soo daray Hussein Oji adama Qays Qaysar iyo Hussein Oji ay sahyeen anigoo fursadaas ka faa'iideysanaya waxaan dawrsadaha filmka ka dhigay Hussein Oji adama mar walba oo live TikTok hoos fadhiyo oo hariya habeen bileeyahay iguriday yu alla waxsi waxaan waa film run hamoodi ma ku hayga soo balaan magacaygu waa qaadan qaran waxaan ahay hooyada Qays Qaysar magacaygu waa Baabka Burco waxaan ahay taliyaha filmka Jacayl magacaygu waa Baabaje waxaan ahay macalinka filmka Jacayl
magacaygu waa Habi Axmed waxaan ahay atarishada filimka Jabjacayl. magacaygu waa Qays Qaysar waxaan ahay atooraha filimka Jabjacayl. magacaygu waa Xuseen Ooji waxaan ahay dawarsadaha filimka Jabjacayl. magacaygu waa Dhifiq waxaan ahay laadirka filimka Jabjacayl. magacaygu waa Dhakhtar waxaan ahay laadirka walaalkii. magacaygu waa East waxaan ahay aktarka Zaxibkii. magacaygu waa Haykal waxaan ahay laadirka walaalkiisa labaad ee filimka Jabjacayl. imaka dad badan baa hadhow oran doona Haykal miyaad haysan waa maxay foolkan aad ka turtay anigu fool kama tuurin waa aygan ku sameeyay saaxiibe. magacaygu waa Istaahil waxaan ahay atarishada saaxiibadeed filimka Jabjacayl. okay hadda waxaan filayaa in filimka Jabjacayl intiradiisa aad iyo aad uga wada hesheen sidoo kalena jilayaashuna ay iskiin bareen. haddaba imaka waxaynu toos u wada bilaaban doonaa filimka cusub ee Jabjacayl. kaygii Qays Qaysar uu ka habsaamay iskuul Malaaye. Malaaye bay ku leedahay anigu malaha baan qoray waxay Malaaye niyo marka qaar wad ka yaabaa hadalladooda niyo waxa sooranaysa maxaad aduu cudin weydiiba ku daa Malaaye ha quraacde hooyo Qayso soo kac waad habsaante. hey hooyo waan isdiyaariyay waan soo baxay. hooyo waan dhameeyay waan baxay. wiilkaygii is ilaalixay saaxiibka East waka halka taagana isi sii raaca. hay hooyo okay saaxiibkii istina dibadu taagay nabadgeliyo dad biistow iga raali noqo malaa waan kugu soo habsaame. majaaj istaag ma tagays istixiita wuxuu iga ekaaday fardhi haye soo kora. ka noo joog saaxiib lacagtii waad naga haysa. ها soo soco waad habsaanteene hay macallin halka joog lacagtii waad naga haysaa soo kaaha. haa wala saaxiib Istaahil waan habsaamay soo maaha haye soo dheere. okay haddaba filimka labada mir ee aad daawateen ayaan ku soo gabagabay laakiin waan sii wadi doonaa. intaa kadibna waxaan sameeyay TikTok cusba sidoo kale muuqaaladii AI-ga ahaa ayaan ku soo baahiyay isla TikTok cusba. filimka waynu sameynay sidoo kale akoonka TikTok ahaa cusba waynu sameynay sidoo kale muuqaaladii waynu ku soo baahinay TikTok cusba. haddaba waxaynu eegi doonaa bal muuqaaladaasi siday social media ugu faafaan iyo sidoo kale dadka caanka ah ee filimkan ku jira bal waxay ka dhahdaan 2000 years later. salaam calaykum saaxiib dhamaantiin aad baan idin salaamay markii aan muuqaalada ku soo baahinay TikTok waxaa ka soo wareegatay muddo 48 saacadood adoo 2 cisho iyo waxoogaa hadda aynu geli doonaa akoonkeeni TikTok ahaa ee aynu soo dhignay muuqaaladii filimada AI-ga haddaba waxaynu eegi doonaa bal sida uu social media ugu faafay. bismillaahi raxmaani raxiim muuqaalkii intarada ahaa ee ay jilayaashu iskaga barayeen waxaa daawaday in ka badan 5 milyan sidoo kale filimkii AI-ga ahaa isaguna ee part 1 ahaa isagana waxaa daawaday dad ku dhow 100,000 oo qof. part 2giisina waxaa daawaday dad gaaraya 5 milyan. war dadkan xay ka yimaadeen dadkani xagee ka soo daatay. okay saaxiib waxaa kaloo idin sheegaya in waxaan ku filimkan AI-ga uu arkay Qays Qaysar sidoo kalena uu reaction ka bixiyay. haddaba bal aynu wada eegno waxa uu ka yiri quraacde hooyo Qayso soo kac waad habsaante. hey hooyo waan isdiyaariyay uu yaabin wallahi waan soo baxay. guys qofkan maaniga hadda waayo ma cid kala tahay soo arkaya oo sheegada Amiire iyo Cali Aamin baa ila timaadeen aniga kuwaas xayawaanay hayn laakiinse kan waa film real nagala taganiyo waalida. hooyo waan tawarro inta waa idhaahdaa alxamdulillah waa idhaahdaa intaasoo kaliya maaha hadallo badan oo sida caadiga aad u tiraahdo ayaan filimka ku soo dhex galay. wiilkaygii is ilaalixay saaxiibka East waka halka taagana isi sii raaca. magacaygu waa Qays Qaysar waxaan ahay atooraha filimka Jabjacayl. hada cide ma aygi faruhu ka baxaya wallahi billah aygi maalinba maalinta ka dambaysa faruhu ka baxaya iminka anigii aan gadayn halka iska fadhiya filim caadiya baaba liiga sameeyay boo Jabjacayl la yiraahdo. bal waxa eegtaan 2 sano ama 3 sano kadib ama 4 sano kadib laguma baahnayaba in lagu yeedho haddii la rabo in wax lagu xayeysiisto 2 sano ama 3 sano kadib qof kastoo caan oo YouTube oo waxa ku TikTok leh lama baahnanayba waa runtii haddii la doonayo in wax lagu xayeysiiyo
sawirkaagu baa la soo qaadanaya ee ayguma la dhex gelinaya easy peasy